munaasabada xuska maalinta qowmiyadaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee federaalka Itoobiya oo maanta ka dhacday magaalada Jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka Itoobiya waxaa ka soo qayb galay ra'iisul wasaaraha wadanka Itoobiya Haile Mariam Desalegn, madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geele, wasiirka warfaafinta Soomaaliya Cabdullaahi Cilmooga Xirsi, madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamed Cumar, diblomaasiyiin heer caalami ah oo ay ku jiraan kuwa Afrika, madaxweynayaasha maamulada Somaliland, Puntland iyo gudoomiyaha maamulka kumeel gaarka ah Juba, marti kale oo aad u tiro badan iyo 56 qowmiyadood oo ka kala yimid gobolada kala duwan ee wadanka Itoobiya iyo kumanaan shacabka magaalada Jigjiga ku dhaqan, waxaana munaasabada lagu qabtay garoonka kubadda cagta ee magaalada Jigjiga. munaasabada ayaa lagu soo bandhigay ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka qowmiyadaha dalka Itoobiya, sidoo kale ardayda dugsiyada dowlad deegaanka Itoobiya ayaana soo bandhigay ciyaaro ay jecleysteen madaxdii ka soo qayb gashay xuska maalinta qowmiyadaha wadanka Itoobiya. dhinaca kale khudbadaha munaasabada xuska maalinta qowmiyadaha wadanka Itoobiya ayaa waxaa khudbado ka jeediyay qaar kamid ah madaxdii lagu xasumay kulankaasi ama munaasabadaasi. madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Cabdi Maxamed Cumar ayaa dhankiisa hadal u jeediyay martida ku soo dhaweeyay xuska 29 Hidar in ay kala soo qayb galaan. waxa uu sidoo kale sheegay inuu ku faraxsan yahay in magaalada Jigjiga ay martigeliso xuskaasi. madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geele oo khudbad dheer jeediyay ayaa ugu hambaliyay horumarka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya uu gaaray iyo guud ahaan dowlad goboleedyada wadanka Itoobiya. ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Haile Mariam Desalegn ayaa sheegay in guul weyn ay gaartay jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka ee Itoobiya, waxaana ugu hambaliyay dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya sida weyn ee ay u diyaariyeen maalinta qowmiyadaha iyo curashada dastuurka ismaamulka Soomaalida Itoobiya. fantasiyaha xuska maalinta qowmiyadaha dalka Itoobiya ayaa ku soo dhamaatay jawi qurux badan iyadoo dadku ay isku marxabeynayeen farxadda maalinta xuska, waxaana wakiilada qowmiyadaha ka socday la guddoonsiiyay hadiyado ay ugu talagaleen madaxda jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya.